وصعبين تليفون تعبير ummadda ku nool Puntland gaar ahaan gobolka Mudug iyo nawaaxigiisa waxaan ugu hambalyeeynaa in aan u furnay waxyaalihii badnaa ay ka cabanayeen haday bidaar tahay haday salxanyo tahay haday sunniyo tahay iyo haday gar tahay intaba waan u keenay walaalayaal waxaan inii keenay dhaqaatiir ajnabi ah oo Turki ah oo ku takhasusay beerista timaha sunniyaha iyo garka marka qofkii salxanya ka cabanayay diyaar baan u nahay qofkii bidaar ka cabanayay diyaar baan u nahay qofkii sunniyo ka cabanayay diyaar baan u nahay qofkii gar ka cabanayay diyaar baan u nahay walaalayaal idinka ayaa inii soo kordhinay markii aan aragnay ummadda reer Puntland gaar ahaan gobolka Mudug cabashada ay ka cabanayaan oo ciyaalkooda ay leeyihiin aabo timaha ma soo beeratay Turkiga aadid islaantii ay leedahay niyo waad qowday waxaan leenahay waata gaalkacyaan u keenay marka waxa weeye isgaraafo tiraan leenahay timihiina hagaajiya qurxiya dadka kale oo timuhu daadanayaan oo googo'a ka cabanaya walaalayaal waxaan u keenay daawooyinkii loogu talagalay shaambadii saliidihii iyo fitamiinadii baan u keenay marka insha Allah taala walaalayaal baahidiina markaan maaragtay iyo cabashadiina ay nagu farabadatay baan waxaan ku talagalnay meel kasta aan u tagnay inaan keenno gobolka Mudug waana inii keenay waana inii soo dhaweynaynaa waana qiimo jaban soo dhawaada aan leenahay xaruntuna waxay ku taalaa Classic 2 Business Center soo dhawaada qaybteeda kore insha Allah taala footada waxay ka soo horjeedaa Titanic meeshan aad baan ugu baahnayn ragga yagaan bidaarta leh maadaama anagu aan sanxayaha iyo ragga bidaarta leh anagu aan daayeeda iyo gaarin ba dadku waxaan ugu hayaan wadaal baan noqoteen marka hadii naloo keenay safahayr naloo keenay oo raggii timina loo beerayo si qofkii laga dhigay sidoo ku dhashay waa arin aad iyo aad u macquul ah weeyaan u baahnayna weey aad baanan u mahadinaynaa ninka la yiraahdo madar awlo oo noo soo kordhiyay arintaas iyo barnaamijkaas rag badan baa beertay oo ku guuleystay arintaas aad iyo aadna u soo dhaweynaynaa aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan leeyahay ragga dhalinyarada ah oo hadda daartu gashay nimanka xaaladaha ganacsiga ka jiraan waxaad samaysaan meeshaan imaada meeshaan la ii furay aad baan idin soo dhaweynayaa wax yar baa maanta xarig laga jaray wax yar baa hawshin idinku dhameynaya timaha sidii awl aydiin ahayn baa la idin kaga dhigayaa sida arkaysaan galabtay waxaanu xarag ka qayb galnay xarag jarka xarunta Safa Hair Clinic oo ah xarun casri ah isla markaasina waxyaabihii loo aadi jiray dalka dibadiisana lagu keenay magaalada Gaalkacyo waxaan uga mahad celinaynaa saaxiibadii arintan ka shaqeeyay dhaqaatiirtii iyo waliba walaalkay madar runtii reer Gaalkacyo waxaan leeyahay ka faa'iideysta xaruntan in ay idin hayso adeegyadii tintii inay beerayso bidaartii sidoo kale salxaanyadii la soo celinayo garkii la beerayo suuniyahana la beerayo iyo wax kasto mudaawaad ku saabsan tintaada iyo cilada ka haysata in halkan lagu farsamo bixinayo horta dhamaantiin suudiyiinta Safa Hair Clinic oo u mahad celinayna runaantii waa wax aad loogu farxo in ay fureen xarun cusub oo timo beerista ah oo qaybo kala duwan loo nooc walba dhaqaatiir professional ay joogan runaantiina waxay ku taalaa meesha dhiyado hotelka Classic waan soo dhaweynaa ninka dhiyado madar oo xaruntan insha Allah furaya waxaan leenahay hadii dhibaato uu ku hayeen timala'aantu oo aad ka cabanaysan oo aad ka fikirayseen waa hadda la inii beerayaa waxaan ku leeyahay ku qurxiso oo ku xaragooda ay tahay
waana laga baxayaa rabshadii xaliyii uu ku hayay ragga bidaarta loo oran jiray si daadaanirnimado timaha soo beero marka waxa leeyahay raggu waxaan kulay halkaasan hayaa intii la keeno sidii raggaas muu jeeda carabaha iyo hindida oo kale to hadba dhanaa urugeen hal la wada shaaruqaan leeyahay ragga dhamaantood